madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi xubnaha golaha wasiirada boorka sare ee maxadka tababarka shaqaalaha gudoomiyaashii hore soo maray maxadka barsaabada mayrada iyo marti sharafta kale agaasimayaasha iyo bahda macallimiinta professorada maxadka tababarka shaqaalaha waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane madaxweyne sharaf bay noo tahay in maanta aynu u joogno dufcaddii 13aad ee ka graduate garaysa ama ka qalin jebisa maxadka tababarka shaqaalaha dawladda taasi oo ku dhisan siyaasadihii iyo xeerarkii aad shidaysay oo laga soo dheegayay xeerka shaqaalaha dawladda iyo xeerarka kale ee ka dheegmayeyba oo jidaynayay in shaqaalaha dawladda la tababaro aqoontooda kor loo qaado sidoo kalena aqoontooda runtii la fidiyo oo lagu fidiyo goobaha shaqaalaha ay joogaan oo dhan sidaa daraaddeed anigoo u hambalyaynaya 219 arday ee maanta ka graduate garaynaya maxadka oo sidaa agaasimuhu sheegay maxadka ay ka aflixeen shaqaale ku dhow 10,000 oo shaqaale oo ka bartay aqoon runtii markaa ay ka muuqato goobaha shaqaalaha iyo shaqada mudane madaxweyne xeerka shaqaalaha marka laga tago hay'adda shaqaaluhu waxay samaysay reform weyn oo sanooyinkii ugu dambeeyey oo ay joogaan guddoomiyaashii hore iyo guddida imikuba runtii ay wadaan taasi oo xisbiga kulmiye ka mid ahayd waxqabadkiisii iyo halbowlihii runtii iyo higsigiisii oo ahayd in la helo shaqaale tababar iyo aqoon iyo xirfadba leh mudane madaxweyne aqoonta iyo koruqaadka maxadka tababarka shaqaaluhu waxay keentay in dhammaan maanta shaqaalaha dawladdu ay ku urursan yihiin darajooyinka taasi oo ah heer jaamacadeed sida xeerka shaqaaluhu uu sheegayo sidoo kalena uu sheegayo in runtii agaasimayaasha ku-xigeennada iyo dadka ka hooseeya ee maamula ama heer sectionka ama heer unitka waxaa loo yaqaano inay dhammaantood yihiin dad aqoontoodu ay gaadhsiisan tahay heer jaamacadeed mudane madaxweyne maxadku wuxuu soo saaray shaqaale runtii u tababaran inay qabtaan hawl socodsiinta iyo hawl maalmeedka qaranka sidaa professorku sheegay waana ta keentay in dhammaan shaqaaluhu ay ku urursan yihiin darajada sanadkan sidii mudane madaxweyne xeerku ina farayey siyaasaddiina aad ku ssoo saartay waxaynu samaynaynaa in shaqaalaha dawladda aynu darajooyinkoodii dib ugu noqonno sidaa siyaasadda iyo xeerku ay sheegayeen oo sanadkan 2025 aynu 25 darajo ka dhigayna halkii 4 darajo ay ahayd taasi oo runtii ay keentay maxadka markii ay ka baxeen shaqaale fara badan oo gaadhay heer masterisa iyo heer ka sarreeyaba inay noqotay markaa in dib loogu noqdo darajooyinkii shaqaalaha iyo beygoogiiba sidoo kale waxaan madaxweyne kaaga mahadnaqaynaa inaad wakhti badan gelisay xeerkii howlgabka qaranka gaar ahaan shaqaalaha dawladda oo golaha wasiirada oo runtii wasiirkii waxbarashadu nagala fadhiyo wakhti badan aad gelisay xeerkaasi howlgabka iyo xaqsiinta shaqaaluhu inay noqdaan ku runtii lagu faano oo shaqaale weynaha u hiiliya markay gaadhaan da'da runtii howlgabka sidoo kale maxadku runtii maraaxil fara badan buu soo maray maanta wuxuu taagan yahay heer uu isku filan yahay oo uu soo saaro ilaa iyo darajada labaad ee jaamacadda 2005 bay ahayd mar qol yar uu ku jiray oo ay maalgelinaysay UNDP-du 2005 waxay garatay xukuumaddu inay kala wareegto oo ay isu la wareegto oo ay maamusho markaa maxadka hay'adda shaqaaluhu waxay ku kor joogtaysaa oo aan guddoomiyaha whiteboardka sare ee maxadka in la ilaaliyo tayada in la ilaaliyo siyaasadaha iyo runtii inuu hirgeliyo higsigaasba waxaan ka markhaati kacayaa inuu yahay ama maxadku uu yahay meelaha ugu adag ee marka la gelayo ardaydu ay soo codsadaan in ardayda nambarka ugu badan ee soo codsanaya nambarka laga qaato ay yihiin dadka ugu quality-ga ama aqoonta badan ee shaqaalaha dawladda waxaan rajaynaynaa madaxweyne maadaama maxadku koray inuu u gudbi doono insha allah oo aan codsanaynaa heer jaamacadeed oo magaca aan ka bedelno dhowaan haddii ilaha idhaahdo kaasi oo noqon doona civil service university haddii ilaha idhaahdo baahida keentay waxaa markhaati ka aqoon-yahanka runtii maxadku soo saaray maanta
oo maraya heer masterisa madaxweyne maxadka waxaan ku fidinay gobollada bariga oo xarunta labaad ee maxadku ay tahay magaalada Burco taasi oo ku filan gobollada bariga oo dhan Sool Sanaag iyo Togdheerba dhammaan shaqaalaha jooga ay si bilaash ugu dhigtaan maxadka tababarka shaqaalaha ee magaalada Burco taasi oo runtii iyaduna wax badan ka tartay shaqaalihii gobollada bariga joogay waxaan rajaynaynaa madaxweyne anagoo hirgelinayna siyaasadaha xisbiga kulmiye ee ah tayeynta iyo kor u qaadka shaqaalaha qaranka inaan ku kor joogtayno 18 siyaasadood ee ka dhalinayay xeerka shaqaalaha ee qalinka u duugtay 18 kaas oo u hiilinayay shaqaalaweynaha qaranka 18 kaas oo dhiirigelinayay shaqaalaweynaha qaranka 18 kaas oo runtii kor u qaadayay shaqaalaweynaha qaranka inaanu hirgelino oo aanu fulino oo aanu markasta heegan ugu nahay siyaasadahaasna mid ka mid ah waa tahay maanta u fadhino runtii oo ah miradhalkii xisbiga kulmiye iyo madaxweyne Muuse Biixi runtii dadaaladii uu galay shaqaalaweynaha qaranka aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad buu hambalyeynaya waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha oo hawlo qaran ku jiray runtii inuu yidhi ka maarmi maayo inaan kala qayb galo waan joogayaa waan la farxayaa shaqaalaweynaha qaranka ee ka garaajuwad gareynaya maxadka shaqaalaha dawladda wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh